gabadh ka soo qaado madaarka gabadhu ma aha mid ka tirsan ururka laakiin waxay iigu sheegeen in ay tahay kuwa taabacsan mabaadiida aanu aaminsanahay subaxii ayaan soo qaaday gabadh xijaaban oo ay ka muuqato dhowrsanaan waxa isku ka qaban weyday muuqeeda iyo waxa la ii sheegay waxaan ka warsaday sababta ay u timid dalka waxayna ii sheegtay inay ka qayb galayso kulan samafal ah iyadoo ay casuuntay hay'ad ka mid ah kuwa qaramada midoobay kulankii ayay ka qayb gashay iyadoo aan u fahmay in la doonayo inay hablaha tusaale u noqoto kulamo hoose ayaa loogu sii ballamiyey inay la qaadato hablo gaar ah markay howlaheedii dhammaysay ayaynu habeenkii casho la qaadannay islaan cad oo madaxa hay'adda ah iyadoo dhaqankeedii beddesha ayay farxad isku qaabileen islaantii anigu waan daawanayaa siday iskula jaan qaadayaan waxaanse madax wareer ka qaaday oo igu weynaatay waxaa ka soo baxay afka gabadha si toos ah ay afka ugu ballaadhisay iyadoo islaantii ku leh aan kuu bishaareeyo islaantii ayaa ku halcelisay iga farxi waxay ku tidhi bishaarayso hadda kadib jiilkani khatar inaguma aha waxay sii raacisay in ay hayso oo ay farta ka saariso xogtii laga ururiyey internetka oo caddaynaysa inay kor u kacday ilaa xad dhallinyarta daawata aflaanta xunxun micnaha aflaanta jinsiga fajiciso ayaa igu dhacday oo waxaan garwaaqsaday in jiil dhan nuurkii qalbiga ay madoobaysay daawashada xumaanta iyo sinada lagu faafiyey internetka kenya ayaan isku raacnay subaxii xigay markay gabadhii nairobi gaadhay waxay la soo baxday dhaqan cusub oo ahaa kii aan ka malaysanayay maryihii ayay tuurtay oo intay sidii hablaha reer galbeedka u labisatay ayay dhex gashay qolo gaala ah oo badan anigu nairobi wax badan kuma hakan waxaan u sii dhaafay lisbon oo laygu soo casuumay shir qarsoon oo lagu arriminayo siday u ekaan doonto mustaqbalka siyaasadda soomaalidu shirkii waxaan kula kulmay berj oo ahaa shakhsiga guddoomiyaha howlaha la hayo waxay isla soo qaadeen sidii soomaalida loogu samayn lahaa nidaam federaal oo sii murgiya mushkiladaha hadda ka dhex dabaalanayso sidoo kale waxay tuseen in federaalku uu yahay habka ay ku joojin karaan calanka tawxiidka leh ee ay reer somalilan saarteen waxay yidhaahdeen calankaas ayaynu ku duldhisaynaa calanka buluuga qolo xag jir ah ayaa ku dooday in soomaalida laga qaado xaqa aayaka tashiga oo gacanta loo geliyay un-ta ama waddamada jaarka markuu shirkii dhammaaday waxaa la isla qaatay in soomaalida loo sameeyo nidaam federaal oo qas ku salaysan beej ayaa si gooniyaha iigu sheegay in ay meel dhigteen go'aanka ah in soomaalida laga ilaaliyo labo kow in ay soomaalidu isku maamusho shareecada islaamka laba in soomaalidu yeelato dowlad dhexe oo adag wuxuu beeg aaminsan yahay in haddii soomaalidu ay qaadato shareecada islaamka inay dhibaatooyinka oo dhammi ay u milmi doonaan sida cusbada ugu milanto biyaha sidoo kale waxa ay helayaan midnimo taasoo siinaysa quwad iyo sharaf sideen u aqbali karnaa in dhulka khayraadka intaas leeg lihi inuu gacan u galo cid naga mabda' duwan way ku jiraan soomaalida rag leh hamiga ay ku yagleelaan dowlad dastuurkeedu yahay qur'aanka waxaanse ka xignaa dagaal wuxuuna yidhi waxaan nahay qoom wax akhriya oo wax darsa qur-aanka ayaannu baadhnay waxaannu ka helnay sir suuradda labaad aayadda 120aad taasoon kala baxnay in haddaan soomaalida ku qancino inay raacaan nidaamkayaga ay waayayaan gargaarka iyo guusha alleh markaannu taageerayno doorashooyinka somalilan iyo hirgelinta federaalka nagama aha jacayl ee waxay naga tahay inaannu kala dhex galno iyagii rabbigooda u gargaari lahaa beeg ayaa wuxuu sidoo kale carabka ku dhuftay inay somalilan federaalka ku dirqin doonaan marar dambe oon iskaga dab qaaday london hargeysa ankara iyo nairobi ayaan ogaaday in kaaliyihii xogayaha arrimaha dibadda waaxda afrika john iyo corson in laga codsaday inuu madaxweyne obama ku qanciyo in somalilan lagu daro ciyaarta federaalka waxaa la unkay guddi uu hogaaminayo senator donald bayney oo ah xubin ka tirsan aqalka sare ee odayada wuxuu soo casuumiyey dhammaan darafyada soomaalida waxaase shirkaas diiday oo ku kacansay ridayrayaale si kasta oo loo dadaalay haddana rabitaanka federaalku si waxan ugama hirgelin somalilan waxaannu garan weynay waxa hor taagan qoladayaduse waxay tuhansan yihiin inay halkan ka taliso awood qarsoon oo tooda ka xoog iyo xeelad badan si kadis ah ayaa laygu diray inaan hawl ka soo fuliyo kambala waxaa la doonayay in lagu qanciyo dhallinyarta wax ka baratay uganda sidii ay ugu biiri lahaayeen ciidamo loo dhisayo soomaaliya waxaan fadhiistay xaafadda soomaalidu u badan tahay ee kisinya si aan uga ugaadhsado dhallinyar han leh oo aan ciyaarta soo geliyo dhallinyar badan kuma niyad samayn in ay fikirka ila qaataan ujeedka iyo qorshahu waxau ahaa in la helo 500 oo wiil ama ugu yaraan 200 isku aragti ah loona layliyo saraakiil ciidan oo markii loo baahdo dalka xukunkiisa qabsan kara si looga sii xijaabto shiinaha oo faro kulul kula jira geeska ama uu balaambi qorshabi ugu noqdo madaxda maqaasaarka ee soomaalida koonfureed haddii ay ka leexdaan jidka loo jeexay waan ka soo dhoofay anigoo ku hungoobay isku daygaygii inkastoo aan hawsha keli ku ahayn sidoo kale ay dadaalo kuwan la mid ah ka socdaan jabuuti etoobiya iyo suudaan mar dambe ayay gabadh afhayeen u ahayd wasaaradda dibadda maraykanka ay shaacisay in lagu guulaystay qorshe soomaalida loogu dhisaya ciidamo xirfad leh waxaa laygu soo hambeliyey sida hagarla'aanta hayeen u wado howlaha ururka iyadoo laygu bishaareeyey in la isiin doono mashruuca qaybtiisa hore ay ku baxayso lacag dhan $5 malyan sanadkiiba wuxuu socon doonaa ilaa 2022 2.5 malyan hargeysa ayaa